السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيماد قبا aan idiin rajaynayaa. ninkan oo dhinaca commentiga inagu soo qoray su'aashan wuxuu yiri keebla yurur baan ahay gacantayga waxaan isticmaali jiray marka biyaha ayaa hore iga yimaada waxaanan leeyahay xaas wixii baanaan meel la gaarin bay iska daadanayaan bal qaabab kale oo aan ku raali galin karo ayaan jeclahay inaad ii soo sheegtaan. aad buu mahadsan yahay ama iga caawinaya buu ku daray qoraalkiisa in bal haweenayda aan qanciyo oo qaab kale oo iga caawinaya inaad ii soo sheegtaan. waa mahadsan yahay. haddaynu u nimaadno taladiisa waxaa jira 4 qaab oo haweenayda ninkeeda xalaasha u ahi uu ku qancin karo ama uu ka keeni karo biyaha. 4 qaab waxay kala yihiin waa hadalka iyo dhawaaqa, carabka iyo dhunkashada ama ninka oo carabkiisa haweenayda ugu raaxeeya, gacanta iyo ibta. 4 qaab ayaa haweenayda ninku biyaha uga keeni kara. haweenaydu inuu ninku yahay nin qowl ahaan ama hadal ahaan ama oraah ahaan haweenayda biyaha uga keeni kara. waa falsafad aad u weyn taasi oo raggana in yar uun baale arrinta noocaasa. xaaskiisa inuu sheekeeyo oo sheekooyin markaa isagu dareenkeeda ku kicinaya uga sheekeeyo oo markaa xaasku ay isbedesho ilaa heer ay gaadhayso biyuhu inay ka yimaadaan. dabcan qisooyinkaas iyo sheekooyinkaas ninkaasi waa inuu markaa yahay nin awoodeeda u leh, xaaskiisa fahansan, meelaha laga istaaray iyo qisooyinka iyo sheekooyinka markaa isku bedelaysa biyuhu ay kaga imanayaan. qodobka kale waa carabka. haweenayda oo ninku carabkiisa ula tago oo uu dhunkado oo uu afka ka dhunkado oo uu indhaha ka dhunkado oo uu dhagaha ka dhunkado oo markaa meelo xasaasiya carabkiisa uu taabsiiyo gaar ahaan wejiga ha u badnaatee ilaa uu gaadhayo carabkaa sida uu ugu dhunkanayo heer haweenaydaasi ay qanacdaba oo biyuhu ay ka yimaadaan. marxaladda kale ee afraad waxa weeyaan ninku inuu gacantiisa haweenayda ugu raaxeeyo, gacanta inuu ku salaaxo, inuu gacanta meel kasta oo jidhkeeda ka mida uu ka mariyo heer ay gaadhaysa haweenayda biyuhu inay ka yimaadaan. ta ugu dambaysay afraad waa ninka oo isticmaala xubinkiisa taranka oo isaguna kaas markaa oo ka ugu muhiimsana ama ka bulshadeennu ay aadka u taqaanaa kaas inuu markaa ugu raaxeeyo ilaa heer ay gaadhaysa inay biyuhu haweenayda ay ka yimaadaan. haddaba 4 marxaladood haddii ka xubinka taranka aad ku guuldaraysatay inaad haweenayda biyaad ka keento 3daas option ee kale ayaa kuu bannaan. 3daa markaa qaybta aad ku wacan tahay adunbaa isdareemaya, laakiin qaybaha ugu muhiimsan waxa weeyaan gacanta oo ninku haweenayda uu si fiican ugu salaaxo jidhkeeda guud ahaan gaar ahaan goobaha markaa xasaasiga ah ee haweenaydu ay dareenka ay ka qaadanayso sida horaadada ama naasaha iyo goobaha kale ee jidhkeeda gaar ahaan maqaarka oo dhan ilaa timaha ilaa dhabarka ilaa meelaha kale ee xataa markaa qarsoodiga inuu jidhku ku gaarsiiyo guud ahaanba gacanta. dhunkashada iyo carabku u isticmaalana waa qaybta iyaduna ugu muhiimsan ee markaa haddaad awooddaad leedahay oo qof sidaa u dabacsan aad tahay oo saa dhexgal u samayn kara. qowlka ama hadalka waa dad yar uun baa isticmaali kara laakiin haddii aad tahay nin sheeko ahaan ku bedeli kara haweenaydiisa oo xaalad kale oo emotional ku gelin karana taasina way ku caawinaysaa. intaas ayaynu u tilmaami lahay ninka odayga ah ee su-aashayna soo weydiiyey. fadlan la sii wadaago bulshadeena kalena u sii sheergareeya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.